Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa shalay Jimcaheed booqday masjidka iyo mowlaca Sheekh Muxudiin Cali. Ra'iisul Wasaaraha waxaa booqashadiisa ku wehelinayay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Jenaraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare iyo duqa magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen Mungaab iyo ra'iisul wasaarihii hore dalka Soomaaliya Mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. intaasi kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo halkaas kula hadlay culimada ayaa tilmaamay in ay farxad u tahay soo booqashada mowlaca Sheekh Muxudiin oo ka tirsanaan jiray. runtii sharaf ay tahay inaan markaskan oo aan ka tirsanaan jiray soo booqdo waxaan bogaadinayaa dadkii runtii soo abaabulay iyo intiina soo dhaweysay waan kaga mahad celinaynaa runtii waxaan iska jeclaan lahaa anoo aanan qofna la socon dalaq inaan soo dhaqaaqina waqtiga keenay aad baan kaga mahad celinaya runtii sida noo soo dhaweyseen waxaa la rabaa ummadda waa ogtihiin dhib badan baa dhacay ummadda Soomaaliyeed inay iscafiso in taariikhdeenna wixii dhibkii soo maray inaan marno maxbuus u ahaano ma aha. ugu dambeyntii wafuudii uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha oo ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho iyo ra'iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen ayaa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay. waxaa kaloo meesha ka hadlay culimadii halkaa lagu soo booqday waxa ayna tilmaameen inay aad ugu faraxsan yihiin in maanta mowlacani ay ku soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha dalka isla markaana uu halkaan ka qadiyo. mudane soo dhawaaw waa kaga mahad celinaynaa maayeele qiimeynta aan qiimeysay sharafta aan sharaftay waad ku mahadsan tahay. waxay muujinaysaa taariikh tixana ah oo ah qoyska Cabdirashiid Cali Sharmaake Allahu raxmada asaga sida oo ugu xirnaa mowlacan Sheekh Muxudiin Cali mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo soo booqday markaskan diiniga ah ee faca weyn ee taariikhiga ah markaska Sheekh Muxudiin Cali oo hadda joogo oo daadihinayo oo dacwada khayrka ka fulinayo sheekhana Sheekh Shariif Sheekh Muxudiin Cali. Umar Ismaan Xuseen Umar Danno shabakada caalamiga codka dunia.com